waxaan jeclaystay inaan isoo gudbiyo qaabka aniga ilmaha ugu aqriyo my routine life-kayga. Waxaan sameeyay evening time galbihii caruurta iskuulka markay kasoo laabtaan 30 mirir ayaan u seexiyaa si maskaxdooda u nasato ilaa maanta dhan ay iskuulka maqnaayeen madaxooda wixii lagu soo shubay dhan si ay u nastaan ay ugu baxaan oo aniga wax ugu aqri karo oo wax u fahmaan. haddaan la seexin 30 mirir ama 30 mirir oo rasta la siin wax ilmaha maskaxdooda ma kala dhacaysa. sida hadda u jeedid waxaan aqrinaynaa quraanka marka hore naqtiinka aqrinaynaa markaan aqrino naqtiinka aan dhameeyna ka bacdi waxaan aqrinaynaa niyuga marka aqrinayna markasta waxaan dhahaa gacanta saar maxaa dhahay sheeg sida ugu fududaado cunuga ugu fududaado cunug kasta pointigu aqrinaa iyo xarafka meesha uu carabka dhigaayo oo yani oo fahmaa markaas quraanka uu fududaanaya oo tajwiidkiisa yani si yaro basiid ayaa cunuga u noqonaa insha Allah qaabka wax u aqrinayaan insha Allah idoo sawd insha Allah soo geeli doona biidnillaahi kariim simple noqonaysa sida had u jeedid waxaan cashirka caadiga waa kana caadi su'aalaha weydiinaa sida u jeedid su'aal kastaba ansarkeeda waa ku qoranta su-aasha weydiina ansarkii oo ii sheegaya asoona arkeed oo soo xafdinaya su-aasha weydiina ana haysta computerka ansarkii yani caadi oo sheegaya maandiyaasha waxa laga yaabaa halkii subjective inay 4 lesson 2 lesson 5 lesson inay qabta ana lesson ay qabtaba 2 lesson waa qorayna 2 lesson caadi afka ugu sheegaa 3 lesson caadi afka ugu sheegaa marka yani waa kana sida maxaa la dhigaa class 8 oo hadda sano kaleeto wuu qoraaya wuuna aqrinayaa markasta oo qorayna waxaan dhahaa wax oo qoraaya say afka ka sheeg waxa qorisay and write oo ku fududaanaysa markasta waxaan dhahaa write maanta dhan waa inay caruurta waxna waa inay qoraan waa inay aqriyaan guriga ayaa wax lagu bartaa iskuulka galigiis wax lagu barto iskuulka magac u yaal ayuu u taagan yahay iskuulka wax un baa lagu soo sharxaa magac un baa iskuulka ugu yahay laakiin majority waxa dadku wax ku bartaan guriga ay wax ku bartaan haddana wax ka seyntiisha jira u dirsanay hadda aad wax ka seeysan maadayaashaada guriga aad uga caawinaysa maasha Allah basiidii ku noqonaysa markastaba isku day in ilmaha guriga looga caawiyo waa kaasa questionka waa kaasa answerkan waa tan cad questionkan markastaba waad fahmi kartaa meesha ku qoranta antonyms synonyms easy waa meaning kulliya baraysa marka يعني just easy ونقول امتحانات مركي إما عنق أسوي حكى عنق بدنا إسكولك نعا وجد المادة ياكو أدق مادة ديكو أدق تعنق إسكولك هذا ونعا نحن نروح مكو أخري وسكا عيارة إنه بري وحكو أخرنا ما عنق واحد بجرينا عمل إفن تشدا ودرت وأنا جريسة إفن هذا كسين حتى أنا كسي سجل oo waxa fahmaysa soo cunugaas wuu soo diyaarnaa casharka hooyadii waxaan way kasii usdaa cunuga oo soo diyaarnaa laakiin hadaan sameyn tiisha sida adiga rabtid cunug inuu kugu soo aqrinaa laga yaaba markastaba ilmaha waa in xoog la saaraa ani caadi ahaanteeda yani waan jeclahay maanta dhan inaan wax qoro la aqriyo wax la qoro asloonga wax qortid aan wax aqriso maskaxda grow up ay ku sameeyay fududaanaysa saad u jeed waa kanada questionkiya qore ansarkii hadda iiga ku jawaaba iiga caadi u qoraa farta qurux kaliya u noqonaysa cunuga the practice home ku sameey iskuulka quruxda farta oo quruxda badan point fiican ku helaa iskuulka hela imtixaanka hata point ku helaa sida u jeedinba ma sha Allah waxa soo korinaya geedkas meesha aku abuurtay nacnac aku abuurtay shayga ku darsaday ma sha Allah shayga sokorta iyo nacnacaas la bas waay canjeeradii ma sha Allah macaanta badnada duwanooya mjita caaga dabada ka gooysaas canjeerada ugu duwanooya ma sha Allah so much beautiful ku noqonaysa qurux wakaas canjeerada qurux badan inta leh hadda koraas waxaan ka sameeyay canjeerada aan soo gilay ma sha Allah wakaas suqaarka u sameeyay canjeerada u sameeyay shayga wakaas shaay nacnac iyo sokor bes wax kale lagu madaran nacnac iyo sokor bes nothing more kale ma jiraan ma sha Allah yani cashada soo diyaari cashada soo dhab loo siina خلاص cunug kastaba sariirtiisa hore ka tagay asoo nasti maskaxda u nasatay cununa caloosha ugu jirta ma sha Allah saa u jeedin xaafadayna xaafad Soomaali camal aad u qurux badan tahay wala ma sha Allah kulli waxa degan ajaanib iyo qadariin oo badan yihiin ma sha Allah qurux I love it my xaafadeeda